muddo 5 sano ayaa ka soo wareegatay markii ay golaha deegaanka ee degmada Burco ay maayirka degmada Burco u doorteen Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad waxaana muddadaasi hirgalay qorshayaal badan oo ay shacabku ku doorteen golaha deegaanka ee hadda kuwaas oo ay ka mid ahaayeen inay dadka ku dhaqan magaalada Burco ay helaan adeegyada looga baahan yahay in dawladda hoose u qabato muuqaalka guud ee magaaladu waxa uu ahaa 5 sano ka hor mid ka gadisan ka hadda idin muuqda mana jirin wadooyin ku filan oo ay adeegsadaan bulshada ku dhaqan magaaladani sidoo kale waxaa jajabnaa wadooyinkii hore ee dhex mari jiray magaalada muddadaasi 5 sano waxa gabi ahaanba la bedelay muuqaalkii hore iyadoo laga dhigay mid la jaan qaadi karta gobolada lama jeerto ee dalka wadooyin badan ayaa laga hirgeliyay guud ahaan magaalada Burco iyadoo la sameeyay wadooyin ka baxsan faras magaalaha kuwaas oo dhex mara 4 waaxood ay ka kooban tahay magaaladu sidoo kale waxaa dib u habeyn lagu sameeyay wadooyinkii hore waxaana arintaasi ku diirsaday badi shacabka ku nool magaalada Burco runtii waxay qabatay waxqabad badan oo la soo koobi karin laakiin dad badan indhahoodu aanay arkaynin anigu saan arko waxay qabatay laamiyo sida laamiga jaamacadda galo oo kale ilaa jaamacadda ilaa iyo socdo siirooga waxay kala qabatay laamiga dawladda hoose ka laabta ee gala jarmalka qabta ee Saleeman kullalka ka gala waxay kala oo qabatay hagaajisay wadada dheer ee qabata kan dhalaydka waxay kala oo qabatay wadadan qabata iyaduna jarmalka ee wadada dheer ee laamiga dheer ee awaalo suqaar ka leexato waxay kala oo qabatay oo waxqabadkeeda aanu ku tilmaami karnaa oo markii hore aanay qabsanin maayirkan iyo xukuumaddiisu aanay qabsanin Burco aanan qabin in guri walba hortiisa ay istaagto isku rogada xashiishka laga qaado oo ay ku wareegto xaafadayda waxay gashaa 4 u sheegaya annagu xaafad ahaan 5 sanadood oo u dambeeyay waxqabadka naloo qabtay wuxuu ahaa mid fiican ee dawladda hoose aanu anagu ka tirsanay xaafad ahaan mid fiican buu ahaa xagga nadaafadda markay tahay alka nadaafaddu ugu badan tahay baa xaafadayda ah ee sayladda ah subaxii walba waa laga qaadaa laamiga isna lamida waa labada laami ee midna Oomaar naga dhaxeeyo midna uu gaar ii yahay labadaba sambari subax walba waa la maraa waa la qaadaa waa faras magaalada oo waa laga guraa waxaan kale oo idin sheegayaa laamiga dheer ee mara ilaa kantaroolka Oodweyne ilaa shacabka ka soo baxa kaasna waa mid xaafadayda oo de waaba cusub yahay oo waa de imaka waa laami cusub oo waa ilaa aragtay markaad ka soo qaado sariibada weyn ee sayladda laga dhisaayo iyaduna waxqabadkay ka mid tahay waxyaalaha naloo qabtay waa wax aad iyo aad u fara badan oo aan la soo koobi karayn dawladda hoose annagu haddii aanu nahay reer Oktoobar runtii waxaan odhan karnaa waxqabad fiican oo maxay ahayd la odhan karo waa la mahadiyay ayaanu u haynaa oo ay noo qabteen 5 sanadood mashaariicda ay noo fuliyeen ee ay noo qabteen waxaan odhan karnaa haddii aanu nahay reer Oktoobar maalintii golaha deegaanka la doortay may lahayn xaafadayadu wado oo laamiya raf bay ahayd dhibaatay nagu ahayd caqabado badan baa naga haystay gaadiidka iyo dadka iyo bulshada dhibaatana ku qabnay laami aad iyo aad u qurux badan oo maxay ahayd in badan magaaladii deegalaya baa naloo sameeyay waxa kale oo naloo sameeyay maxay ahayd waxa weeyaan xabaalihii oo dayacnaa Oktoobar oo dadka lagu aasi jiray ilaa iyo intii deegaanka laga dhigay degmada Burco gobolka Togdheer waa naloo dhisay iyaga iyo culimada Burco oo iskaashanaya golaha deegaanka iyo culimada Burco iskaashanaya ayaa noo dhisay ilaahay baa mahadle laamigana naloo dhisay waxa naloo dhiso nadaafadii fayadhowrka waxna looga qabtay xeradhig xaafadda la yiraahdo xarunta la yiraahdo oo iyadana xoolaha lagu qalo iyadoo tii horena la soo baabiyay oo lagu qabanayo hadii ilaahay ka dhigo danguud oo naloo qabtay maxay ahayd waxaanu helaa dayactir nadaafadeed oo joogta gaadiid baa ka hawlgala xaafadayada subaxii ilaahay soo gado waxna laga qaadaa qashinka wadku magaalada uu ka muuqdaa waxa weeye wax la dafiri kara maaha 11 wado oo magaalada Burco dhaxmara ayaa qaarna wax laga qabto la ribeedmay qaarna dhulka laga qaad sida taagan hadoo kale marka wax qabadku sida qorraxdaas uu muuqda cidina ma dafiri karto waxaan anagu qoladan tigaha ee tiglayaasha runtii aad baan uga faa'iidnay wadooyin badan oo laamiye fara badan oo tigu hadda ay maraano la sameeyay baa jira oo dhan kasta magaalada bariga galbeed baa
sidoo kale waxaa sare loo qaaday nadaafadda iyo bilicda waxaana markii ugu horreysay la hirgeliyey wax ka shaqaysa bilicda iyo waddooyinka kuwaasi oo habeen walba nadiifisa waddooyinka kuma koobna oo keliya waxqabadka dowladda hoose ay hirgelisay muddadaasi 5 sano magaalada gudaheeda balse waa mid wada gaadhay guud ahaan tuulooyinka iyo degmooyinka hoos yimaada degmadani Burco iyadoo ay shacabku qirayaan waxqabadka dowladda hoose ayaa haddana waxaa jiray khilaafyo soo noqnoqday kuwaasi oo u dhaxeeyay golaha deegaanka degmada Burco gaar ahaan maayirka iyo xildhibaanada shacabka ku nool magaalada Burco ayaa iyagu arintaasi waxay u arkaan mid ragaadisay waxqabad badan oo laga hirgelin lahaa magaalada haddaba waxqabadku way sii kordhinayaan oo maayirku soo kordhinayaa haddii isqabsiga la joojiyo ee dowladda hoose joojiso isqabsiga qabsan waxaan ka codsanaynaa waxqabadka dowladda hoose way muuqanahay mar walba laakiin isqabsiga mar walba taagan ee ragaadiyay ee gobolka ragaadiyay way laga daayay golaha deegaanka degmada Burco khilaaf baa ragaadiyay muddo dheer soconaya oo dhexdeeda golaha deegaanka dadna bulshadii soo dooratay ee gobolka Burco in badan baan indhaha ku haynaa khilaaf markasta taagan waxaan moodaa in gobollo badan ka hadhnay ama dib u dhac ku yimi wixii la qaban lahaa ama intan ay qabteen ay ka kordhin lahaayeen khilaafka gudahooda waxaan leenahay khilaafka gudahiina in wada hadal iyo xal iyo miiska wada hadalka ina ku dhameysaan ina ummadii soo dooratay iyo wixii la ka sugayay halka ka sii hormarisaan baa wanaagsan 20 saacadood tiriska ka dhacaya maxay heetay TV-yada hal la joojiyo caqabadaha nalaga daayo waanu ka xunnahay wixii la qabtayna la qabay waana loo qabtay waxa harayna hana loo qabto maayirka waxaanu faraynaa xildhibaanada taagan TV-yada maxamed maraad wixii uu qaban karay uu qabtay wixii uu qaban lahaana iyaga caqabad ku ah maalin walba saxiixa uga baahday iyo shirka uga baahdaabay maxay heetay caqabad ku yihiin maayirka luqunta looga bayro wuxuu qaban lahaana madaxa loogu sii daayo afariin uga dirayaa qolada golaha deegaanka ah iminka bariyahan dambe wuxuuga caqabada ahi ay ka taagan tahay waxaan leeyahay golihiinu haysu marina miidiga haysu marina khilaafkiina waxa weeye waxa tiin la doortay golo isku mid ah tihiin golihiina fadhiista xafiiskiina fadhiista wixii khilaafaada sidii loo dhamaysan jiray u dhamaysta laakiin ninka haddii waxa weeye aad doorateen ama waxa weeye markasta miidiya fariimo u marisaan cuyay boobiyay liqiyay tiraahdaan waxa weeye intuu idin siiyay ma sheegaysaan laakiin intii idinka qadiyo baan u arkaynaa inaan waxa weeye ka cabanaysaan waxaan leeyahay aad iyo aad ayaan waxqabadka uga mahad si kastaba ha ahaatee waxqabadka ay shumiricsanayso ee dowladda hoose ka hirgelisay gobolka Togdheer ayaa ah mid wax weyn ka bedelay bilicda magaalada iyaguna ay shacabku maayirka degmada Burco ku majeeranayaan hirgelinta qorshayaal midho dhala oo wax ka taraya bilicda iyo nadaafadda magaalada Burco kuwaasi oo in badan oo kamid ah ay indhahooda ku arkeen Shaafici Maxamed Ibrahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer